munaasabad aad u ballaaran oo lagu taageeriyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayna ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota mas'uuliyiinta laga soo doortay gobolka iyo degmada ayaa lagu qabtay xarunta shirarka ee dhacda bartamaha magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota munaasabadan dadkii ka hadlay oo isugu jiray aqoon-yahano iyo mas'uuliyiinta gobolka ayaa taageeray iyo duco isugu daray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyagoo muujiyay sidii markasta diyaar ugu yihiin in la shaqeeyaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxayna Ilaahay uga baryeen inuu la garab galo mas'uuliyadda qaran waxaan caawa halkan u bogaadinaynaa ama u hambalyeynaa xukuumadda cusub iyo ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre waxaan soo qaadanayaa qodobka Soomaali heshiisa oo dunida la heshiisihi barbilowgeedu halkuu noqonaya Malia Hanolato Igea Bare Maad Senate sida uu madaxweynaheena Xasan Sheekh yiri waxaan rabnaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la madaxweynaheena Xasan Sheekh iyo walaalkeen Xamse Cabdi Barre waa dad relationship isla yeeshay waa dad aad iyo aad mataqaan iskula soo shaqeeyay waa dad isfahmaya aan xafladan quruxda badan leh u qabtay dabaaldegan farxadda leh ra'iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre yaa inshaaradii ku dhacday waxaan waa wax maartay xaq Ilaahay ka qoran bini aadamku sabab buu leeyahay aan u mahadcelinayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xilkaas ku aaminay waxaan rajaynayaa insha Allah in Ilaahay u fududeeyo waxaan ku faraxsanahay inaan xafladan lagu soo dhaweynayo the new prime minister Xamse Cabdi Barre bogaadiyay dawladda cusub ee uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hogaaminayo duqa magaalada Minneapolis mudane Jacob Frey ayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ku tilmaamay madax wanaagsan ayna haystaan dad wanaagsan ayna matalaan shacab gudaha iyo dibadda ku nool wuxuuna goobta ka sheegay inuu jeclaan lahaa inuu booqdo nafahantiisa Soomaaliya haddii uu ka helo martiqaad The President Hassan Sheikh Mahmoud My message to the new Prime Minister Xamse Cabdi Barre qobka ciyaarka ayaa waxa bulshada Soomaaliyeed madadaalo iyo murtiba isugu daray fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota iyo waliba fanaanka Suldaan Seeraar oo marti ku ahaa gobolka Minnesota wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre wuxuuna bulshada Soomaaliyeed uga mahadceliyay sida ay u soo dhaweeyeen isaga oo ka codsaday inay dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu halakeen gacan u fidiyaan inay tahay xaflad ka tarjumaysa Soomaalinimo iyo dal iyo dad jacayl aad runtii u samaynaysaan dadkiina iyo dalkiina ma aha xaflad ku saabsan Xamse laakiin waa xaflad runtii aan isleeyahay dareenkeedu uu ka fog yahay intaa waxay xiriir la leedahay runtii oo ay tilmaamaysaa sida aad dalkiina iyo dadkiina iyo runtii deegaankiinaba aad u jeceshihiin waxaan rajaynayaa idinku labadaba waad ku tali doontaan xafladiina waad samayseen abaarahana waxaad ugu talagashay baad u leexin doontaan haddii la yidhaahdo xafladda lagu qabtay xarunta shirarka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee lagu soo dhaweynayay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxa ay qayb ka tahay munaasabadaha lagu dabaaldegayo looguna ducaynayay dawladda cusub ee dalkeena ka curatay Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka